siduu dad ugu naxariisanaya waxaad ka garan kartaa wiilkii yaraaye u yimi ee yidhi ilaahay rasuulkiisa waxaan rabaa buu yidhi inaad aniga zinada iyo ogolaatid aniga hallay fasaxa buu leeyay suuqaan gelayaay qiyaas wiil dhallinyara oo soo socda oo nebi maxamed intuu yimi ku leh aniga halaygu sii daayo suuqa dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam udnu soo dhowow buu yidhi soo dhoweey halkuu fadhiisiiyey si caqli uu ku jira buu u qancay wuxuu ku yidhi wiilow hooyadaa miyaad la rabtaa waxaad sheegaysa may buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo hooyada in laga zinaysta mee ma rabo dumarka kalena qaar bay hooye u yihiin buu ku yidhi walaashaa ma la rabtaa may buu yidhi eedadaa ma la rabtaa may habarya intii isaga caarkiisa ahayda ku wareegsanayd buu nebigu mid ugu sheegay mid walba wuxuu idhaahdaa may dumarka in loo soo dhowaado ma rabo dabeetana nebigu wuxuu ihi kuwan kale aad ku socotaana ragunbay habaryartoodii iyo eedadoodii iyo hooyadoodii iyo walaashoodii iyo inantoodii dadkuna lama rabaan buu yidhi kuwooda iyaguna danadadu kuwiina la rabin dadkuna kuwooda lama rabaan buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markii dambe intuu gacanta laabta ka saaray buu u duceeyey ilaahayow dembigiisana dhaaf farjigiisana u xifdi raawiga xadiiska warinaya wuxuu yidhi wiilkii ducadiisii nebiga alla u aqbalo dumarkaba sidaa uma eegi jirin dumarkaas uu markaan laha laygu sii daayo markii dambe danka ma lahayn iimaankiisaa koray waxaa u jeeda haddaan isnidhaahno ka warrama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo akhlaaqdiisii hal qodob oo aynu ka waranno ayaa wakhtiga qaadi laha haddaynu ama dulqaadkiisa ka waranno ama cafugiisa ama xilmigiisa ama geesinimadiisa ama sabirkiisa ama deeqdiisa ama waxbixintiisa ama midkaynu isnaana ka warramo caawa ku dhammayn lahayn laakiin waxaan uga jeedo nutafun min xayaatii inaynu tilmaamno aynu aragno nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rajul cadiima siduu ahaa waxaa gaaladu sheegayaan wax u dhow inaanu ahayn